odayaasha madax dhaqameedka iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolkan Togdheer ayaa cabasho xooggan ka muujiyay lacag ay sheegeen in laga dhacay ganacsida Yuusuf Ismaaciil Xasan Mataan oo ka mid ah ganacsida waaweyn ee reer Somaliland. magacaygu waa Yuusuf Ismaaciil Xasan Mataan TV-yada iyo waxa hore uma iman laakiin waxa uu kalifay baa jira maanta waxaan jecelahay halkan waxaan sheeganayaa dhac xoolo dhan 616,800 dollar oo aanu sheeganayo Maxamed Cabdiraxmaan Faarax Sugaal iyo Axmed Cumar Meegaag Samatar oo aan ku yeeshay lacagta oo qiraalkeedii hayo warqadii ay saxeexeen oo taayada ahaydna waa taa halkaasay ku cadahay waxaan jecelahay muddo 7 sanadood baan samreeyay oo odayada iyo dhaqanka iyagu ilaalinayeen waxay diideen cid kasta oo dhex ahayd waxay diideen madax dhaqameedkii waxay diideen salaadiintii dhexda ahayd ee loo qaybiyay way gar qaadan waayeen warqadii labaad ee tooda nootaayada ku xigtay waa taa jaaliyada qadar baa soo qortay oo warqada shaambada leh ee Sheekh Soomaaliku soo saxeexay way ku qoran yihiin cidii arrinta gashay ee soo cadaysay ee ka hadlaysay lacagta iyada iyo aayadeed hal ku dambeeyay ee u soo qoraysay salaadiinta halkan joogta ee dhexda ahayd warqadaasina waa taa warqada saddexaad waxa weeye waa ballantiina loogu sameeyay wasaaradda daaqiliga ee ay diideen inay iman waayeen waa taa iyaduna cadeynteedii waa mar afraad iyo guddigii dhexdhexaad ahayd ee labada beelood aan ka soo jeedno aanay ku jirin ee salaadiinta Somaliland ka koobani ee ka soo jeeda gobolada iyo degmooyinka kale ay gashay wasaaradda daaqiligu awood ugu siisay arrinta inay soo afjaraan warqadeedina wata warqadeeda shanaad salaadiintayda ayaa waxay cadeynaysaa awood u siiyeen wasaaradda daaqiliga iyo salaadiinta dhexda ah waxay u siiyeen awood inay arrinta galaan oo waxa ay iyagu ku garnaqayaan ka soo gaaraan ay ku qanci doonaan salaadiintu dhinacayaga xitaa haday aniga dulmi ugu tahay warqadii awood ahayd ay bixiyeen salaadiinta iyada ee wasaaradda iyo qolada dhexda salaadiinta u qoreenba waa taa warqadayda lixaad qoladii dhexda ahayd ee salaadiinta ahayd ee Somaliland ka soo jeeday warqadii ay qoreen ee hawsha loo xil saaray ee labada sanadood daba socday ee la diiday in loo soo fadhiisto madax dhaqameedkooda iyo iyaguba iyo codkarkooda iyo culimadooda iyo wasiiradooduba waa taa waa warqadii ugu dambeysay halkaasay waraaqahayga cadeyntayd ku dhamaadeen waxaan kaga baxayaa arrinta muddo dheer baan samreeyay tolkayna madaxayga taagnaa dulmi laygu sameeyay weeyo muddo dheer soo rafanayay wixii dhacay dambe consequences ka yimaada cidii diiday ba iska leh anigu intaasaan kaga baxayaa qoraalku wuxuu cadeynayaa waxa jira uu ka ergoonayo Yuusuf Xasan Mataan de inay lacag tahay 600,000 lacag gaadha iyo dheeraad oo qoraalkana inamada lagu leeyahay Meegaag Samatar ay saxeexeen waxaan muuqan jirin ama ayna yeeli jirin ba meesha iga muuqda waxay noo dhaxay jiray ergada inaynu kala ajiibno laakiin imika waxaan arkaa 11 suldaan oo ergo ah 11 suldaan oo gargalay 11 guddiya oo gabar ka gasho cadaysay labada inan oo saxeexay shariicadii islaamka oo soo fadhiisan waayeen maxkamadii qaranka oo loo soo fadhiisan waayay wasaaradii daaqiliga oo soo fadhiisan wayday bal markaa saaxiib beelsan la doonayaa kala mid waxa yeelaysaan lacagta aan idinka helo isxilqaama isu taga haddaan uqaasha reerka nahay aad iyo aad baan uga xunay iyo gogolkaca loo iyo ergada loo iman waayay ee la dayacay waxaan leeyahay xoolahaas waa raggii lagu haro waa saxeexay waana joogaan waxaan leeyahay xoolaha ilmaadariyan hadday saxeex leedahay waxa ay salaadiintu wax uga qaban weyday ee ugaashu wax uga qaban weyday ee siyaasiyiintu wax uga qaban weyday war arrinka anagu maanu garanaa dawladnimadu warigeedba waa la isdhici jiray ragga kale loo orgeedaba wax ka qaban jiray waxaan leeyahay haddaa ku raacsantiina looga soo jawaab haddaydaan ku raacsanayna xoolaha ilmaadariyan noo keen xoolaha ergaanno erge islaameed baanu nahay noo keena oo xoolaha noo keena odayaashii iga horreeyay waa ogtiin intay soo mareen warqadaha la akhriyay waa ogtihiin waxa dhagaa uga furaysanaysaan ay u diidantiin wallahi maanaan garan Muuse Biixi si wacan baan u wada hadalay maalintii isku kaay dambeysay xoolaha waan doonayaa buu yiri waan raadinayaa buu yiri waan cidda ay ku maqan yihiin labada reer ee Sacad Muuse ay ku maqan yihiin inaan gola keenaa baa la iga yaqaan buu yiri mana keenin oo mu keenin waa u fadhinaa waa ka sugaynaa ergooyinkii baan ka mid ahaa lacagtaa ka ergoonayay ee ku hor fadhiistay suldaanka guud iyo Muuse Biixi markaan wada hadlaynay qiraal bay markii qoraalka halka yaalla waa qiraal oo saxiix haddana wax la sheegay garan mayno
وحوي اسبدل دونه وحاينو كلا دونينو أما دتك اسكو كاين og يا اسبدل دونته هدي أنا لعيتها wax laga qaban oo aanan helin waxa iman doonta isbedel bay iman doona waxaan leeyahay xoolaha ergan oo ergey islaameed baan noo keena oo xoolaha noo keena waxaan wadayaashiisii ninka waa la dhacay waa dhiban yahay waa arrin laga naxo lacag 618 iyo 800 oo dollar oo laga garmarin waayay oo loo soo fariisan waayay oo waxba laga jawaabi waayay waa arrin aan hore dalka uga dhicin in reer Soomaaliland oo madaxa oo hantiilayaalhi inay dhacaynta le ku sameeyaan arrinta hadaan beesha abar jecel waan ka xunahay waxaan leenahay beesha Saacad Muuse isu taga haraba u diiday iminka isu taga lacagta doonina waa u fadhina waa raacsan waxaan leenahay xoolahaas waa cadna ragii lagu lahaaro waa saxahay waana joogan waxaan leenahay xoolaha ilmaadariyan haday saxaah leedahay waxa ay salaadiintu wax uga qaban weeyday ee ugaashu wax uga qaban weeyday ee siyaasiyiintu wax uga qaban weeyday war arrinka anagu maanu garanaa deegaamada warigeed waa la isdhici jiray ragga kale loorgeeda wax ka qaban jiray waxaan leenahay hadaa ku raacsantiin looga soo jawaab haddaan ku raacsanaa xoolaha ilmaadariyan oo keen يوسف إسماعيل حسن دعا وقبو دعا دوالا قبنا عنقنا ودعنا هدانو هاي بيش هابرتيعلو وحانو إذن لينا هاي هداتين بيش سعد موسى أدونك انت هالك أيضا واين رقا هانتيلها أكومغان وايدي كدونينا إلا فرتن عاقل بان نوع قاشي هورا وحانو لنا أرنكا هلو قنتدو ina biixi ha u guntado waliba anigu hadaan ahay caaqil maxamed caaqil Saleebaan caaqil warsama gadoob arrinka ina biixi ha guntado hanoo keeno adduunkaanu ka sugayno tolkii hanooga keeno